duulaanka Israa'iil ay ku qaday shacabka Falastiin waxa uu guda galay maalintii 8aad kooxaha iska caabinta Falastiin duqeymaha ay Yuhuudda uga jawaabayaan gantaalla ayay ku garaacayaan magaalooyin ka mid ah qaybaha Yuhuuddu ay xoogga ku degan tahay oo ay ugu horeyso magaalada Ashqalaan iyo Tel Aviv kama hadlayna khasaaraha ka dhashay iyo xoogihii u dambeeyay taasoo caawa 8 fiidnimo aan soo gudbin doona haddii Alla idmo balse hadda waxaan ka hadlaynaa gantaallada labada dhinac iyo cidda khasaare ahaan ku qabta xagga dhaqaalaha marka ay timaado duqeymaha iyo weerarka ka socda marinka Gaza. Israa'iil sida la wada ogsoon yahay waxay haysataa mid ka mid ah nidaamka difaacyada gantaalaha hawada ee ugu fiican adduunka waxa loo yaqaanaa Iron Dome waxa lagu sheegaa inay yihiin nidaamka saddexaad ee ugu fiican marka laga yimaado gantaalada difaaca hawada ee Mareykanka iyo Ruushka THAAD iyo S-400 gantaalada difaaca ee Israa'iil sanadihii u dambeeyay aad ayaa loo casriyeeyay waa lagu rajo weynaa inay dabooli doonaan baahida Israa'iil u qabto wax ka difaaca gantaalada iyo sawaariikhda ururada Xamaas iyo Xisbullah oo calaad xoogan ay kala dhaxayso Yuhuudda nidaamkan qorshaha lagu hormarinayo waxaa la bilaabay sanadkii 2007 xilligaas oo Israa'iil weerar gantaalo xoogan ay kala kulantay ururka Xisbullah ee Lubnaan balse maanta waqtigaasi laga joogo 14 sano wali waxa muuqata in nidaamka difaacu uusan ahayn sidii laga filayay rajadii laga qabay niyad xoogan ayaa laga qaaday kadib markii uu fashilmay inuu magaalooyinka Yuhuudda ka difaaco gantaalada guutooyinka Al-Qassam oo ah garabka military ee ururka Xamaas ayaa maalin walba noocyo cusub oo gantaalo ah ku samaysta gudaha dhulkooda kadibna waxa ay u tuuraan dhinaca Yuhuudda dhulka ay xoogga ku haysato waxa uu suura gashay in gantaalada qaar ay ka gudbaan nidaamka difaaca hawada ee Iron Dome taasoo noqotay fashil xoogan oo muuqda haddaba sidee ayay ku dhacday in gantaalada Al-Qassam ay khiyaamaan nidaamka difaaca hawada Israa'iil maxaa u sababa fashilka gantaalada difaaca hawada taatika noocee ah ayay adeegsadaan Al-Qassam si ay uga gudbaan nidaamka difaacan Al-Qassam oo in badan ka mid ah hadafkooda gaaray sababna u noqday dhimashada iyo dhaawaca dad u dhashay Israa'iil iyo burburka dhismooyinka sida dhismaha dekadda Aswad mid ka mid ah xarumaha kaydadka shidaalka ee magaalada Ashqalaan garoonka diyaaradaha ee Tel Aviv iyo goobo kale oo dhinaca kale muhiim ah haddaba sidee ayay ku gaareen goobahaasi iyadoo ilaalo adag ka hayo nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil dhammaan su'aalahan muhiimka waxaan uga jawaabi doonaa warbixinteena xiisaha leh oo aan uga hadli doono sababta ka dambaysa fashilka nidaamka difaaca hawada ee Iron Dome ugu horreyn waa maxay nidaamkan difaac nidaamkan waa gantaalo lagaga difaaca hawada sawaariikhda iyo madaafiicda waxaa inta badan lagu rakibaa goobo u dhow deegaanka la doonayo inay difaacaan nidaamka waxaa ku rakiban raadaar si dhaqso ah u soo qaban kara halista ku soo wajahan deegaanka isagoo durbada ridaya gantaalo lid ku ah sawaariikhda ku soo wajahan goobtaas hawshooda ugu weyn waxa ay tahay in gantaaladaas ay hawada ku qarxiyaan ka hor inta aysan goobta soo gaarin sidaasna looga badbaado khatartooda nidaamkan qaab ahaan waxa uu shabahaa midka Mareykanka ee THAAD balse waa wax in badan casrisan kana casrisan nidaamka Mareykanka kaas oo laga hago dhanka dayax gacmeedka sidoo kalena awood u leh inuu celiyo gantaalada isaga kala goosho qaarad ka qaarad balse nidaamka difaaca Israa'iil waxa uu celin karaa gantaalada dhowdhow ee masaafadoodu u dhaxayso 4 ilaa 70 kilomitir guuto walba oo nidaamkan kharashka ku baxa farsamadiisa waxa uu gaarayaa $50 milyan ayadoo qiimaha halkii gantaal uu gaarsiisan yahay $62,000 raadaarka nidaamkan marka uu soo qabto sawaariikhda ku soo wajahan durba waxa uu xadidaa goobta gantaalada ku soo wajahan asagoo natiijada soo baxda u gudbiya xarunta laga haga nidaamkan waxa xigta go'aan qaadasho ah haddii gantaalka soo wajahan ay ku sugan yihiin goob lagu bartilmaameedsan karo qiyaas ahaan in u dhaxaysa masaafada 4 ilaa 70 kilomitir haddii 4 kilomitir uu ka hooseeyo waxaa khasaba in faraha laga qaado si uu u soo dhaco ama waxba kama qaban karo nidaamku waxaa macquul ah isagoo 4 kilomitir ka sareeya inuu qaban waayo tusaale ahaan 6 kilomitir uu soo jiro goobta bartilmaameedkiisu tahay haddii gantaalka lagu difaaco la rido waxaa dhici karta inuu soo hormaro midka weerarka ahaa sidaasna uu khasaare ku geysto
waxaa xusid mudan in gantaal kasta oo nidaamka difaaca ee Israa'iil uu madaxiisa ku rakiban yahay culays ka kooban 11 kiilo kuwaasoo ka kooban maadooyin iyo waxyaabaha qarxa sababaha fashilka ee nidaamka hadda soo dedejisay in badan oo kamid ah khubarada ku xeer dheer arrimaha difaaca waxay isku raaceen in mid kamid ah sababaha ugu weyn ee keena fashilka gantaalada difaaca ee Iron Dome ay tahay in guutooyinka Al-Qassam ay la soo baxeen taatiko cusub oo ay ku jahawareynayaan nidaamka khubaradu waxay sheegeen in habka guutooyinka Qassam ee ah in hal mar si wada jir ay u ridaan sawaariikh tiro badan taasoo ay ku bartilmaameedsanayaan hal goob ay tahay sababta ugu weyn ee ka dambaysa fashilka nidaamkan waxay tusaale u soo qaateen duqeyntii koowaad ee magaalada Tel Aviv oo muddo 5 daqiiqo ah ay ku rideen 137 gantaal ururka Hamas guutooyinka ayaana marka ay ugu yartahay waxay hal mar ridaan 50 gantaal iyo wax ka badan ujeedada ugu weyn waa in jihada laga dhumiyo gantaalka difaaca ee Israa'iil ayagoo isla markaana gantaalada tirada badan ay jahawareer ku ridayaan nidaamka si aysan wax fursad ugu siin inay wada bartilmaameedsadaan dhammaan ka hortagida gantaalada Falastiin ayaa in muddo ah daraasayn ku wada nidaamka difaaca hawada ayagoo u koorgalay meelaha uu aadka uga liitay iyo dulduleelada ay ka soo gali karaan waxay ogaadeen in nidaamku uusan awood u lahayn xakamaynta gantaalo tiro badan oo hal mar la wada rido arrintaasi waxay tashwiish ku furteen raadaarka nidaamka jihadana way ka lumisay waxa isla waqtigaasi gantaalada qaar ay awood u heli karaan inay ka baxsadaan nidaamkan kuna dhacaan hadafkii ama bartilmaameedkii laga lahaa arrinta ugu khasaaraha badan khatarta badan ee arrinta ugu daran khasaaraha xoogganna ku ah Israa'iil ayaa ah in gantaalada ay Falastiin samaystaan oo ah kuwa gacan ku samaysa iyagu ay samaysteen nidaamkoodana aan la aqoon sidoo kale qiimahaan aad u hooseeya waxaana loogeyn halkii gantaal ay uga baxdo Falastiin dhowr boqol oo dollar ilaa qiyaasta ugu badan la gaarsiiyay 400 oo dollar balse gantaalada difaaca ee Iron Dome Israa'iil qiimahoodu waa mid aad u sareeya waxaana halkii gantaal uu gaarayaa 62,000 oo dollar tani waxa ay muqaawamada Falastiin fursad u siinaysaa inay khasaare baaxad la geliso difaaca Yuhuudda ayagoo wax qarasho oo badan uusan ka bixin balse khubarada difaacu waxa ay rumaysan yihiin in arrinta qudheedu Yuhuudda dhibaato kaliya aysan ku ahayn maadaama dhankooda maalgelin xooggan ay haystaan khasaaraha dhimashada dadka iyo burburka hantida marka laga tago Israa'iil waxay u muuqataa inay malaayiin dollar ku waayi doonto howlgalka ay ku qaaday Gaza shirkadda Xaaji Alison Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa sonkorta bariiska iyo galleyda dharka isbarbaarka bajaajyada dawooyinka wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda